maraan forward hala fadhiistay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. Runtii ninkaas waa moving dictionary, waa living history. ninkaas yani waxa weeyaan waa nin gobolka aad u fahamsan. hal arin oo runtii oo micnaha yani yaab leh oo isha waxa kamid ahayd uu yiri madaxweynaha Tigreega waan la fadhiistay hadda ka hor. waxaan kula kulmay Addis Ababa. waxaan ku dhahay waryaha يعني waxaan tabaa yiri war adig gobolkaas madaxweynaad ka tahay gobolka horumar gaarsii يعني dowladda dhexe la shaqeey Abiy Ahmed la shaqeey wuxuu yiri waxa ka soo fakato dhahay keligay taada igama goy karto yiri meelaha talada ayaga babka go'doba maxay yeelay waxay ahaayeen foreign project ay ahaayeen marka in waqti ay hadda lagu dhumiyo waxaba ka wanaagsan bay dadka yani dadka leh in waqti saaxiib yaal ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo aad u xiiso badan. muuqaalkan waxaan ku gorfeyn doonaa ama aan kaga hadli doonaa Professor Cabdiwahaab Sheekh oo sheegay inuu mar la kulmay madaxweynaha dalka Eritrea asigoona sheegay siro badan ku saabsan arrimaha gobolka. bal maxay tahay bal muuqaalkan ayaan kaga hadli doonaa. soo dhawaada asxaabta. haddii aad channel ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe ay saarto muuqaalkan ilaa galay si dad badan ugu gaaro muuqaalka. Professor Cabdiwahaab ayaa ah professor ka faallooda arrimaha siyaasadda kaasoo ka hadla arrimaha geeska Afrika siiba Soomaaliya, asigoona mararka qaar isku soo qaata Soomaaliya iyo wadamada deriska la ah, asigoona mar walba ka dhiidhiya halka Soomaali ay ka taagan tahay xagga siyaasad ahaan markii loo fiiriyo wadamada kale. ayaa waxa uu sheegay mar uu la kulmay madaxweynaha dalka Eritrea in mar walba uu ku soo celceliyo in qof walba waddankiisa uu horumaristo shacabkana ay la shaqeeyaan dowladda mar walbana haddii shacabka iyo dowladda ay isla shaqeeyaan ay noqon doonto dowlad xoog badan ay meeshaasi ka dhalan karto. bal dhegeystow ila daawo muuqaalkan ilaa iyo dhammaadka si wax badan aad ugu ogaato arrimahan. lagala hadlo macna waxa weeyaan yani waxa kaaga shakeynayaa oo ku farba inaan ku fahamsiiyo yani siday dib u tahay dibka maanta Horn Africa ka taagan si yani ay u qodan tahay ayaa rabaa inaan kula wadaago. يعني nimankan Tigreega ah taababa ka go'daba mar alla markii ciriir la geliyo oo macnaha yani runtii ay ciriir badan galaan waxa la sameeyaa wax loo yaqaan ceasefire. waxa la sameeyaa yani waxa ama Djibouti la sugu tagaa ama maartay yani Kenya la sugu imaanaya ama meel kale la sugu tagaya. ceasefire la sameeyaa la leeyahay macnaha waxa rabaa wax kala ma waxa rabaa inay helaan wax loo yaqaan breathing space oo dib they can easily regroup. لكن let me tell you one thing سفرتان ما فكنايان تاس I can guarantee you سفرتان وحواي سيكون فكنا وضعتها وحويان سفرتان ممكن يعني وقت يعني حليا هدا تقال هدا ايه باللابين واحد يكرتا إن مانث إنه يكون عدد يعني مكلة dadkii macnaha Tigreega ahaa masaakiinta ahana dib ay ku hayaan nin kasta cunug kasta oo 15 jir ah ilaa qof 65 jir ah bay u dhiibeen ilmaha yarka marada laga furaya hadii timaha hoos lagu arka qore loo dhiibaya yani waxaan kaga shakeynayaa how yani markaan say brutal u yihiin markay xukunka ka dagayeen oo ninkan oo la doortay yani 80% military hardware way kasoo ciidamada ka soo qaateen waxay geeyeen martii Northern Command meesha Tigray gobolka Tigray geeyeen 30 bilyan ay ka dhaceen yani bangiga dhexe ay ka xalafiyeen birti way qaateen ilaa markii dambe lagu qasbay prime minister inuu bedelo yani lacagta birti inuu bedelo oo ku bedelo lacag kale ku bedelo oo macnaha yani si yani lacagta hore ay macnaha suuqa ugu baxda يعني literally waa brutal way hadda waxa weeyaan yani dawlado badan aan behind the scene ka qayb qaadan oo ninka amigraynay logistics siinay yani waxa kale iska taa yani waxa xataa marka qaar kood waxa loo fasaxayaa inay yani shidaalka macnaha yani UN ta ayaa dhacaan
way dhacna leeyahay yani waxa weeye runtii inta mararka qaarkood waxaa sirada NGO waxay qayb ka yihiin dagaalada dhacaya huraya ee maanta bariga Afrika ka socda ee ka soo Afrika ka socda ay qayb ka yihiin war war 6 milyan waliba 6 milyan markaan ku leeyahay 5 milyan kama badna 6 milyan ayagaa qortay they are determined inay Horn Africa xukumaan oo macnaha ay gacanta ku dhigaan oo ayaga ma looga dambeeyo oo lobby u sameynayaan London Paris ilaa iyo America ay lobby sameynayaan oo ay leeyihiin marti yani anaga xukunka nolosha gacanta nolol soo geliyeen oo doonaya inay yani 230 million macnaha people oo Horn Africa nool East Africa nool ayaga xukumaan 30 million of Somalia ana waxay diyaar u yihiin adoon noqdaan inay akwaan adoon noqdaan diyaar u yihiin oo habeerata inay ku fakaraynin inay adduunka xukumaan maxaa yani ninka maanta muqdisho joogo ee maanta yani intellectualka muxuu maanta intuu qalin qaato qol isku soo xiro uu fikri laayahay inuu Horn Africa qabsado maxaa ka hor jooga waxa ka hor jooga maxay tahay sheeg waay waxa ka hor jooga maxay tahay waay aad isugu diyaarisay oo generationka Soomaalida ugu diyaarinay inay adoon noqdaan waay waa su'aal u baahan in laga fikiro u baahan weeyaan mid kale waxa weeyaan yani dadka Soomaalida ee ku nool Ethiopia hadda unbay yani xoogo xornimo yar heleen hadda unbay indhaha kala qaadeen hadda unbay yani xorriyada qowl heleen hadda unbay dhaqankoodii iyo luqadoodii ay qorayaan hadda unbay jidad ay samaynayaan iskuulo samaynayaan oo ay samaynayaan ii sheeg muxuu ahay yani muxuu ahay isbitaalo ay dhisanayaan waxaa loo diidaya marka inay intaa helaanba loobaba loo ogolabo annagaan Kenya ku noolaa fiicanba oo runtii yani waxa weeyaan tacliin haysana oo macnaha waxa weeyaan haysana muxuu ay sheegeen dhakhaatiir fiican haysana يعني ilmaha caruurta waxa noo baranayaan ayaga waxay ku nooleen waxa loo yaqaan yani waxay ku nooleen yani stone stage yani waxay ku waqti hore ku noolayeen marka yani stone age inay noo yimaadeen moodaa marka dibka meesha ka taagan waxa weeyaan yani wadamo badan oo macnaha waxa weeyaan oo foreigners ah oo powerful nations ah ayaan ogolayn gobolka inuu dego ma ogolo marna ma ogolaanayaan al-shabaab waa foreign project waa gun for hires waay see loogu gudbi karaa dadka shicibka iyo dowladda inay la shaqeeyaan waay madaxweynaha iminka jira in dadka shicibka ay la shaqeeyaan waay si waddanka loogu bixiyo maxaa yeelay haddii kale gobolkan ma degaaye dhibka Soomaalida laisku hayay way ka soo gudubtay hadda xuduudaha ka soo galaysaaba Kenya soo gudubtay Ethiopia u gudbaysaa Eritrea u gudbaysaa Djibouti u gudbaysaa waxaan idin sheegay gobolka isku xiran yahay hal wadan hadduu wax noqdo ka kale oo fulgaroobay asna uu dhac uu dumaya marka mushkilada marka meesha ka taaganta taa weeyaan waxa kaloo jirta oo runtii aad iyo aad muhiim u ah oo runtii inta badan aniga aan qadari waxay tahay waxay dhahaan war Cabdiwahaab adiga dictatorship waxa u jeceshahay ayay dhahaan aniga ma jecli dictatorship aniga ma jecli laakiin laba shay inaad kala sato loo baahan yahay good governance iyo democracy waa laba aan shaqo isku lahayn dimuqraadiyada reer galbeedka ilaa 500 way gaaraysaa oo qalano nooc cusub hadda waxa Soomaaliya ka dhacay oo selection oo clan based politics ka waa democracy lagu leeyahay that democracy wali ma iga doortay Soomaalida ma iga doortay dadka Soomaalida ma iga doortay qofka macnaha ummad baarlamaanku masalay ma i dooranin laakiin in the eyes of the western world waa democracy lagu leeyahay is a democracy